hantida uu leeyahay jilaaga caanka ah ee Shah Rukh Khan waxa uu ka mid yahay jilayaasha ugu taajirsan caalamka. Jilaaga caanka ah Shah Rukh Khan, oo dalka Hindiyana looga yaqaano Boqor Khan, wuxuu ka mid yahay jilayaasha ugu taageerada badan caalamka. Wargeysyo badan oo ay ka mid yihiin Forbes iyo Celebrity Net Worth ayaa wax ka qoray hantida uu leeyahay iyo sida uu ku helay dhaqaalaha uu haysto. Shah Rukh Khan sanadkii hore uu ka guuldareystay filimkii uu sameeyey ee Zero, ayaa weli la sheegay in uu ka mid yahay jilayaasha ugu hantida badan dunida, inkastoo uusan ahayn sidii hore. Jilaagan oo sameeyey in ka badan 80 filim oo intooda badan uu ku guulaystay, dhaqaale badanna uu ka helay, ayaa hantidiisa lagu qiyaasay $600 milyan. Shah Rukh Khan oo sidoo kale ku guulaystay abaalmarino caalami ah, wuxuu leeyahay shirkadda madadaalada ee Red Chillies, taas oo samaysa aflaanta iyo waxyaabaha la xiriira sida duubista muuqaalada. Wargeyska Forbes ayaa qoray in Shah Rukh Khan uu sanadkiiba mushahar ahaan uu u helo lacag gaaraysa $30 milyan. Lacagahaas oo uu ka sameeyo xayeysiinta iyo aflaanta uu sameeyo. Shah Rukh Khan waxa uu jilay aflaan badan sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Hindiya. Shah Rukh Khan wuxuu si dhow ula shaqeeyaa waaxda dalxiiska ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Hawsha uu la qabto waxay tahay in uu ka shaqeeyo muujinta iyo soo bandhigidda goobaha dalxiiska ee Imaaraadka. Sidoo kale, wuxuu Shah Rukh Khan dhaqaale ka helaa uu hormuud u yahay barnaamij loogu magacdaray Bemigwest, kaas oo ah mid dowladda Imaaraadka ay ku soo jiidato dalxiisayaasha caalamka. Malaayiin dollar ayuuna ka helaa muuqaalada xayeysiinta ee uu u duubo. Shah Rukh Khan ayaa si joogto ah u booqda dalka Imaaraadka Carabta. Sumcadda uu dunida ku leeyahay Shah Rukh Khan iyo sida dad badan ay u xiisaynayaan aflaantiisa ayaa keentay in shirkado badan oo caalamka ay ka dalbadaan in uu xayeysiimo u sameeyo. Shirkadaha uu xayeysiinta u sameeyey waxaa ka mid ah Pepsi, Nokia, Tag Heuer, Dish iyo shirkado badan oo ku yaala dalalka Carabta, kuwaas oo ka ganacsadaha dahabka. Shah Rukh Khan iyo dhaqaalaha uu ka helo xayeysiinta. Mid ka mid ah xayeysiimihii uu dhaqaalaha badan ka helay Shah Rukh Khan wuxuu ka helay $8 milyan. Forbes ayaa mar Shah Rukh Khan ku tilmaamay in uu yahay jilaaga labaad ee ugu taajirsan caalamka, wuxuuna ka mid yahay 50 qof ee ugu saamaynta badan dunida. Taageerayaasha Shah Rukh Khan ee daawada aflaantiisa guud ahaan dunida ayaa la sheegay inay ka badan yihiin 1 bilyan oo ruux. Dalalka uu taageerayaasha ugu badan ku leeyahay waxaa ka mid ah Soomaaliya, oo aad looga jecel yahay aflaantiisa jacaylka ah. Weliba marka uu afka Soomaaliga fasirayo Fuad Alfagi, boqorka codanita ee Alfagi Studio, sida uu qiimeeyey wargeyska The India Today. Magaca Shah Rukh Khan waa mid aad looga tixgeliyo dalal badan oo caalamka ah. Sida uu qoray Forbes, Shah Rukh Khan wuxuu ka taajirsan yahay jilayaal ay ka mid yihiin Tom Cruise, George Clooney, Mel Gibson, Adam Sandler iyo Amitabh Bachchan. Jilaagan caanka ah wuxuu hanti guryo ah ku leeyahay magaalooyinka Mumbai, Dubai iyo London, sida uu qoray wargeys ka soo baxa UK. Qoyskiisa waxay ku nool yihiin gurigiisa qasriga weyn ah ee ku yaala magaalada Mumbai ee dalka Hindiya. Halkan aad naga dawanayso waa deeqsame. Fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji.